بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamaya soo dhawaada. runtii waxyaabaha badan ee maaragtay markasta la soo weydiiyo had iyo gooraale waa maaragtay timaha weeyaan. marka waxaan rabaa maaragtay inaan aan ka taabto arrin yani qodob inaan dhowr waxaan ka taabtan doonayaa. arrinkaasina waxa weeye badanaaba tinta yani waxaa la igu yiri maxaa tinta gooya, tinteedu aad bay u go'daa, waxyaabaha sababa tinta maaragtay ma noo sheegi karaysaa. marka runtii tinta waxyaabo badan ayaa tinta maaragtay gooya u sababa inay tintu go'do. marka wixii kulli anigu aan experience-gayga aan u leeyahay ayaan rabaa inaan maaragtay aan idin soo tabiyo. kow tintu waxa gooya waxa weeyaan waa tinta marka u horeysa adigoon daryeelin oo tinta maaragtay shampoo qalada ku dhaqay oo tinta maaragtay double shampoo fiican aan tintaada marinin oo tinta maaragtay had iyo jeer tintaada aadan shalaynin ama tinta aadan duuduubin oo aadan hagaajinin. taas weeye maaragtay qodobka u horeeyaan oran karayo waxyaabaha tinta gooya. taas ayaa ka mid ah waa wixii haddaan faraha lagu haynin oon la wadwadin oon marba wax lagu dayin de waxa weeyaan wixii ma hagaagayaan. marka kaasi waa qodobka koowaad. qodobka labaad waxa weeyaan tinta waxaa gooya adiga oo jilciso maaragtay mariyay, adigoo color tinta mariyay, adigoo maaragtay maxaa la dhahay highlight mariyay, adigoo tinta heat badan iyo waxyaabo badan maaragtay fooniyo badan tinta mariyay, kaawiyad kulul, taasna tintu maaragtay way goysaa. haddii wixii loogu talagalay tinta aad markasta aad samaysid oo tintii aad nafaqaysid oo tintii aad wadwadid wax kasta tinta waad ku samayn kartaa, waad u adkaysan kartaa. marka kaa waxaan oran karaa waa qodobka labaad weeyaan. qodobka saddexaad ayaan u gudbayaa. qodobka saddexaad waxyaabaha tinta gooya waxaa ka mid ah adiga oo maaragtay dawooyin qaata prescription ah oo dhaqtari kuu soo qoray adigoo qaato oo kale. dawooyinka way gooyaan tinta runtii. markay gooyaan marka waxa weeye jirkaagii waa isbedelaya ma ogti. marka waxyaabaha tinta gooyan waxaa ka mid ah dawooyinka prescriptionka ah ayaa tinta gooya. kaasi waa qodobkii saddexaad. qodobkii afraad waxa weeyaan gabadhu markay uurka yeelato ama walaaca gabadhu ay noqoto maadaama jirkeedii isbedelayo oo jirkeedii hormoneskeedii iyo wixii dhan systemkii dhan uu isbedelayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmo dhan ay yani uurka gabadhu ku qaadayso. taas waxaa sababta tintu inay maaragtay ay go'do. taasina tinta way goysaa. waa qodobkii afraad. qodobka shanaad waxa weeyaan qofku haddii uu maaragtay maxaa la dhahayay uu qofku tinta aadan afka ka jarin oo maaragtay 3 biloodba anigu waxaan oran karaa marka aad ugu badan tahay tintaada waa inaad 4 bilood ayaan kula dhaafin. waa inaad saloon tagtid, tintaada aad soo jaratid si qurux badan lagugu soo jaro oo tintu aflaqa ayaan yeelanin. split end tintu hadday yeelato damage baa tintii gaaraya. marka inaad 3 biloodba ama 4 bilood ugu badnaanba hal mar tintaada aad soo habaystid intaad meel professional saloon tagtid dhag. taasina tinta way goysaa. haddii aadan taas samayn oo tintii 6 bilood aadan jarin oo tintii sanad aadan jarin afka aadan ka jarin iyo ka badan tintii marka waxa weeye dee waa damage waxyeelaa gaaraysa. tintii way go'aysaa waa inay go'do. taasina waxa weeyaan waa qodobka shanaad miyaan soo kii lixaad waayahay. marka tintu inay go'ayso layskuma hayo. tintu way go'aysaa laakiin maxaa la doonayaa tintii horta hadday go'do dee tintu ay aad u daadanayso, tintu ay qubanayso kale maxaa la dhahayay wixii yani fooqal caqli aan ahayn waxaan anigu kugula talin lahaa dhakhtarkaaga inaad tagtid ood u soo sheegtid. laakiin wixii iska xoogaa tintu hadday iska go'do wax yaryar waa iska normal. waa inaad tintii unaad gacanta ku haysid oo tintii aad nafaqaysid oo waxay doonaysid tinta aad ku wadid. waxaa kaloo tinta gooya waxyaabaha kale gooya waxa weeye qofku haddii uu stress badan ku furan yahay
problem badan, fikir badan, walwal badan. qofka haddii uu ku furan yahay dhibaato haysatana tintu way go'daa, waayo wixii way isla shaqaynayaan. jirkii ilaahay subxaana wa tacaala de wixii way isku wada xiran yihiin, kulli way saameynaysaa. taasina tinta waxyaabaha gooya ayay runtii xaqiiqatan ayay ka mid tahay. marka anigu intaasoo ma aragtay waa inta ugu ma arkay ugu muhiimsan. way ka badan yihiin intaas waxyaabaha tinta ma aragtay gooya, laakiin intaasi waa intii yani ugu muhiimsanayd sidaan idin sheegayba. marka tinta ha lagu dadaalo, ma aragtay ha lagu wado, ha la nafaqeeyo, daba shaambo fiican iyo maxaa la condition fiican, shaambo fiican iyo usoo gado. wax kasta ma aragtay nafaqooyinka, creamada, hadday dabiici noqoto iyo hadday noqoto waxyaabo product yahoo aad marketkaba kasoo gadan karaysid. si ay noqotaba tintaada waa inaad gacanta ku haysid intii karaamkaaga ah ee aad wadi kartid. wixii haddii la wado oo la qurxiyo oo maalin kasta laga shaqeeyo dee wax way iska quruxsanaanayaan. laakiin wixii haddii ma aragtay sidii la doonayay aan loo daryeelin way isbedelaysaa, boode tintii way baaba'aysaa. marka insha allahu tacaala waan qodobo kalena waan soo wadaa hadduu ilaahay yidhaaho oo timaha la xiriira. marka su-aalahan baa igu soo noqnoqday oo wax badan laysoo weydiiyey. intaana waa inaan maaragtay in aan experience u leeyahay. marka intaynu ku kulmi doono videogan ka xigi doono hadduu ilaahay yidhaaho, waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.